إن شاء الله تعالى وأنا كبيح دونا عدالة دراسة وأنا كبيح دونا وحنا إذا استاجتي ولا لها جودي قسمت بحين بلا بنادر إذا استاجتي عيد كستاب إن حق هذا ماشي كده حمقته أو حق أي ماشي بنادر يقول لك دلك إيشه من بداية خبيرك كواد إلا خبيرك أفرتن السجالات كتير سن بلا بنادر إن حق هذا هل دونا أي إن شاء الله تعالى كل رجعونا هاي لا هي عندنا هذا الشيء لا هي حتى ما أنت حلبان دومان وخبصة دنيس سجارك وقبسنا عند حسابت ما يسمى لهن أذا لا حسابت ما أذا لا حسابت ما لهن oday kastaba laba oday ay xabiil xildhibaan kastaba wuxuu sameystay laba oday ayuu sameystay labadaas ayuu maalgelin ku sameynaa kadibna wuxuu doono sameysana waxaan ugu tilmaama badanaa inaan nahay dad haysto xildhibaano oo sida hadda meesha kaga muuqdaan 5 xildhibaano ayaa nagula sheegay inay anagana maamulaan oo banaadir ay maamulaan walo dulmi uu yahay oo anagoo 49 qabiil oo nidaamsan oo dhaqankooda wanaagsan yahay oo la yaqaano oo dadkii xadaariga ahaayeen aan nahay ayaa waxaan ugu soo koobay 35 inaan naqaro kaliya in la siiyo 5 kursi in la siiyo oo la yiraahdo kursiga beelaha banaadiriga hala jiray halkaas oo shaqaale qaadatay la dhahay haddana waxa la siiday loo soo waday 5 lagu soo gabagabay shantii markii waxaan rabaa inaan wax uun ka dhaho hadda sida la socota walaaleyga beelaha banaadiriga hadalkayga si fiican dhageysta waxaan la soconaa in maanta xildhibaanada baarlamaanka ay ka doodeen qaabka loo wado inuu yahay qaab qaldan sida la socotaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo wasiirkiisa arrimaha gudaha waxay ka doodayeen ay go'aan ku gaareen 2 sano ka hor 2 bil ka hor madaxweyne xasan sheekh maxamuud yani wasiirkiisa wuxuu sheegay in la diri doono odayaal loo diri doono qadar loo diri doono odayaashaasoo la rabo in ay wada xaajood la galaan odayaasha kuwa qolada shabaabka la yiraahdo ee dagaalka magaalada muqdisho ama Soomaaliya ku haya odayaashaas waxaa loo qiimeeyay ugu yaraan 300 ilaa 400 odayaal ayaa loo qiimeeyay oo inay baxaan oo meesha aadaan oo ay la kulmaan odayaashan kale shabaabka la kulmaan si ay wada xaajood la sameeyaan kadibna nabad meesha lagu soo dabaalo marka waxaan rabaa inaan update idinku sameeyo tan hadalkayga meesha nuxurka u yahay waxay tahay dhageysta gabadha xildhibaanada ah oo hadalkan qarxisay sheegtayna in maanta madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu qorsheynayo in odayaal 250 odayaal uu rabo inuu u diro maxaa la dhihi jiray qadar u diro kala ayaga la xaajoon doona odayaasha shabaabka ay soo dirsanayaan ee la xaajoon doonaan marka anaga waxa rabnaa inaan horta marka hore erigana dhageysano falaqeyn badan ka sameyn doona Allah subhanahu wa ta'ala ila dhageysta gabadhan xildhibaanada marka hore intaan xildhibaanadan aan warkooda aanan gelin waxaa jiro wasaaradda arrimaha dibadda waxaa la leeyahay waxaa lala hadlaa al-shabaab shalay madaxweynaha wuxuu ka dhahay lama hadlin haddana liiskii wasiirka qadar lagu aadayo oo ra'iisul wasaaraha iyo waxaa la soo saaray wasiirka waxbarashada iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha ay aadayaan 250 qof la invitaashay waa la qarixa war waxaas dawladnimo ma aha walaalayaal dawladnimada waa la yaqaanaayo dawladnimada laga shaqeeyo waxaan filayaa inaad wax badan ka barateen gabadhan waxay cadeysay in maanta madaxweyne xasan sheekh maxamuud wasiiradiisa wasiirka waxbarashada iyo wasiirka arrimaha dibadda inay qorsheynayaan iyo ra'iisul wasaarihiisa inay qorsheynayaan inay kulamo la yeeshaan maxaa la dhihi jiray shabaabka kulamo la yeeshaan wada xaajood la sameystaan waxay diyaarinayaan la dhahay hadda miiska saaran sidii tigidhada iyo fiisoon loogu diyaarin lahaa marka waxa su'aaliga ah marka anaga hadii aan nahay beelaha banaadiriga maxaa noogu qorsheysan qorshooyinka la ee hadda loo diyaarinayo maxaa la dhihi jiray nidaamkan ah in shabaabka lala xiriiro maadaama banaadiri aan nahay odayaasheeda marka waxaan weydiinaa xildhibaanadan maanta aad keensateen meesha shalbashaashadeeda kaga muuqdaan waa xildhibaanadii banaadiriga ahaayeen nidaam maxaa ugu qorsheysan inay ayaga naftooda inay ka mid noqdaan odayaasha la diraayo qorshooyin ma ugu jiraan laga yaabo anaga aad ay hurdada u dheer tahay odayaashan in xisaabtan aysan lahayn aysan ogeynba wax walaan la qabanayo haddaba maanta hoosayaasha taagan waxay tahay dad badan isweydiinayaan maadaama hadda la diyaarinayo odayaal la diyaarinayo in odayaal shabaab ay la kulmayaan la diyaarinayo banaadirigu ayaga naftigooda maxaa yani ugu qorsheysan yaa se ugu jiro inay shirkaas ay u dirsadeen meesha uu aadi doona waxaasoo dhan su'aalahaas cid la weydiinaya ma lahano maxaa yeelay waxaa leeyahay
cid lala xisaabtana meesha oolin xildhibaanada meesha hadda anaga soo dhigan ee matala xildhibaanadii anagana aan rabnay inay anaga na matalaan ama howlihii la rabay ee loo idmada inay qabsadaan ayaa waxaa la la'yahay cid la hadashaa la la'yahay xataa maanta xildhibaan hadduu maanta wax qabsado danihiisa gaarkuu qabsanaa cid la xisaabtamaysa ma lahan oday la xisaabtamaya ma lahan oday kastaba laba oday ayay xildhibaan kastaba wuxuu samaystay laba oday ayuu samaystay labadaas oday ayuu maalgelin ku sameynaa kadibna wuxuu doono samaysanaa xisaab la-aan darada jirta darteeda ayaa meesha waxaa soo gelaya marka inay banaadir inay hoos aado oo meel kasta la aadayab inay meesha aysan ka muuqanin la-aana 5 qofood lasoo dooranayo cid la xisaabtamaysa malaha waxqabadkooda lama weydiinayo maxay ummadda u qabteen maxay sameeyeen tusaale hadda idin kaaga soo qaado hadda waxaan leenahay 5 xildhibaana meesha aan ku sheeganaa 5 xildhibaan aan ku sheegano 3 xildhibaan waxaa meesha igaga muuqda 2 xildhibaan inuu weligooda shaashada ay kasoo dhex muuqanin ugu yaraan inta la doorto waxaa laga yaabaa farqu tiris horta midka yarka dheer ee jaakada madowga wato asaga iska badaa weligiis lamaba arkin asoo meesha ka hadlaya cid aragtay ma laha haddii uu soo istaagin hal mar iyo laba mar ayaa baarlamaanka dhexdiisa laga arkay ama shariifkana waaba iskaga daayo 2 maalin oo hadle kadibna waxaa laga yaabaa in loo caayo juglaya laga yaabaa uu qadka ka baxayba saddexdan ku soo hartayna ninkas daniis gaarka u fushana marka waxaan la'anahay marka la xisaabtan cid la xisaabtanta xildhibaanada anaga dooranay oo howlaha u dirsanay ee la rabay inay markii wax qabtaan la dhaho aleyle wax wanaag salaad qabatay haddaysan wax qabanin ee hawsha howlgab naqdaan lala xisaabtan la yiraahdo walaalo waxaan ku dirsanay way howlgabad ka naqatay waxa waajib anagu inaan meesha aan ka ridano oo cid kale aan u dhiibano that's why loo sameeyay in gudigan la sameeyay ee samad bixinta beelaha banaadiriga inay yeeshtaan walaalo 49 ka qabaa'il inay meesha ka dhex muuqdaan oo dhamaantoodaba ay ay soo doortaan xildhibaanka ay dooranayaan ee ka dhex doortaan gudigan ka dhex doortaan odayaashan maalin kasta na haraadsaday ee shahayga la siinayo ama lacagaha la siinayo oo sidoo doon iska sameeyay in laga hortago oday kastaba qabiil kastaba inay soo xushtaan odayaal ayaga u dhan yihiin ee dhamaantood raali iska wada yihiin inay madasha ka mid noqdaan kadibna wax la dooranayo ama waxa laga doodayo ama xisaabtiga la sameynayo in meeshan laga dhex doorto ayaan go'aankeenu u yahay haddaba walaalayaal hadda waxay taagan tahay yaan la xisaabtamayna maanta waxay taagan tahay xildhibaanaha maanta odayaal la abaabulay meel ay aadayaan jagooyin la kala raadsanooya cid la xisaabtamayna malaha jagooyin la sameynaa howlaa la diyaarina howlgalaa la sameynaa cid la xisaabtamay malaha inta la dheerayaasha ah ayaa meelihii qatarta ahaa ayaga ayaa qabsaday degmooyinka ayaa gudoomiyaal ka naqdeen inta kale masaakiinta ahaayeen waxaa la dhahay adig weligaaga xil maba arkaysay meesha joog insha allahu tacaala waan ka bixi doonaa cadaalad daradaas waan ka bixi doonaa waxaana idin istaagtay walaalaha ee gudiga samad bixinta beelaha banaadiriga ayaa idin istaagtay cid kastaba inay xaqada meesha ay ka dhex muuqato oo xaqa ay meesha ku banaadir ay kula inay ka hesho min bidaaya qabiilka koowaad ilaa qabiilka 49aad ee ka tirsan beelaha banaadiriga inay xaqooda heli doonaan ayaa insha Allah taala ku rajaynahay waxaan rajaynayaa walaalahayga banaadiriga oo hawshan la wado inaad garab weyn aad nagu siisaan si ay ummadana u shaqeeyaan adiguna xaqaaga u heshid walaalaha dhibanaha ah ee dhibaatooyinka haystaan oo xaqooda ay u helaan insha Allah taala barnaamijkeena caaw inta aan ku soo gabagabeynaya waa walaalkiina Maxamed Xaaji Amiin Mandar Media. السلام عليكم ورحمة الله تعالى.